wasiirka haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha ee xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta xafiiskeeda ku qaabishay wafdi ka socda dawladda Turkiga oo u qaabilsan xagga caafimaadka iyo waxbarashada oo ay ka wada hadleen kor u qaadida waxbarashada gabdhaha Soomaaliyeed. Marwa Khadiija Maxamed Diiri ayaa mas'uuliyiinta ay kulanka la qaadatay dawladda Turkiga u qaabilsan xagga caafimaadka iyo waxbarashada waxa ay kala hadashay sidii loo horumarin lahaa waxbarashada gabdhaha iyo kor u qaadida xaaladda caafimaad ee haweenka Soomaaliyeed iyagoo kala saxiixday heshiis dhinacyo badan taabanaya. Mas'uuliyiinta ay la kulantay waxa ay ballan qaadeen inay kor u qaadi doonaan waxbarashada gabdhaha Soomaaliyeed oo deeqa waxbarasho jaamacadeed ay siin doonaan gabdhaha ka qalin jabiyay dugsiyada sare ee awoodin inay iska bixiyaan jaamacadaha sida gaarka loo leeyahay. Waxa ayna tilmaameen in sidoo kale ay horumarin doonaan caafimaadka gabdhaha. Kulanka kadib wasiirka haweenka iyo xuquuqul insaanka Marwa Khadiija Maxamed Diiri oo la hadashay warbaahinta qaranka ayaa sheegtay in mas'uuliyiinta ka socotay dawladda Turkiga ay ku heshiiyeen arrimo badan oo ay ugu horeysay in il gaar ah lagu eego qoysaska tabaaleysan. Waxayna intaa ku dartay in ay ballan qaadeen inay quudin doonaan 50,000 oo qoysas. Maanta kulankan aan la kulanay labadan organization oo ka tirsan hay'adaha Turkiga ee dalka ka howlgala Kimis York iyo Nile oo ah dalad ay ku midaysan yihiin oo ay weyn tahay Nile organization. waxaana jooga madaxdoodii labada organization. waxaan kala saxeexanay protocolkan wasaaradda iyo labada organization wakiiladooda ay halkan joogaan. waxaa noo bilaabanaysa howl wasaaradda iyo organizationadaas ku saabsan. ugu horeyn waxaan ku bilownay in 50,000 oo qoys ay sanadkii ay siiyaan qoysaska tabarta daran ay quudiyaan. ugu horeynna waxaa lagu bilaabayaa jimcahan soo socda dadka ugu sii nugul bulshada inaan wasaaraddu soo xusho oo weekly ay noqoto in 100 qoys oo quudkaas la siiyo. sidoo kale Marwa Khadiija Maxamed Diiri ayaa hoosta ka xariiqday in heshiiskooda ay qayb ka tahay xagga caafimaadka, waxbarashada, horumarinta ganacsiga iyo daryeel u fidinta carruurta Soomaaliyeed. waxayna sheegtay in heshiisyadani aysan noqon doonin kuwa hadal ku eeg iyadoo ay jiri doonaan fulin dhab ah. dhinaca waxbarashada inay wax nagala qabanayaan. waxaa noo socota dhinaca caafimaadka iyadana inaan kala saxeexan doono. waxaa noo socota dhinaca ganacsiga haweenka dhinac kasta in aan si ay isku filnaansho u gaaraan carruurta Soomaaliyeedna ay sida kuwa dunida ku nool oo kale ay u noolaadaan. waa howl noo bilaabatay maanta waa kala saxeexanay. waxaas la kala saxeexdayna ma aha wax baaqanaya hadday noqoto waxbarasho gudaha iyo hadday noqoto waxbarasho dibadda. waxaan ognahay gabdho badan oo waxbarashadoodii heer jaamacadeed, heer dugsi hoose iyo dugsi dhexe markay soo gaareen heer jaamacadeed aan helin. ayagana sidii ay loo geyn lahaa haddii ay dibadda tahay iyo haddii waa ballanqaadyada ay haddana horyaan. caafimaadka haddii inta wax looga qaban karo hooyooyinka iyo carruurta jiran intii aan wax looga qaban karinna dibadaha in wax looga soo qabto dawladda Turkiga. wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka Soomaaliya ayaa dadaal ballaaran ku jirta sidii loo dhabeyn lahaa waxyaabaha u qorshaysan iyadoo maanta ay heshiis